kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona xogo iyo macluumaad far badan oo ka soo baxaya kulan qarsoodi ah oo maanta Muqdisho ku dhaxmaray safiirka Imaaraadka Carabta iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble wararkii ugu dambeeyay ka hadleen ayaan soo gudbin doonaa iyo xogaha sirta ah ee dhinacyadu ka soo baxaya sidoo kale waxaad daawan doontaan hogaamiyaasha beesha habargida siyaasiyiintooda inta ugu badan waxa ay markaan ay ku dhagan yihiin isla markaana ay siyaabo kala duwan ugu rimadeen siyaasiga mucaaradka kana mid ah midowga musharaxiinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Same hadaba maxaa xilligan keenay in siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha habargida ay tooska ku soo wada iftiimiyaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Same waxa kale oo daawan doontaan hogaamiyihii kooxda Boko Haram ee dalka Nigeria oo si lama filaan isku diray sidoo kale waxa idin soo gudbin doonaa oo qodobadan kale qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qasaare kala duwan ayaa ka dhashay sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa Jubbaland oo markii ugu horeysay si la yaab leh uga hadashay isla markaana baaq culus ka soo saartay duqeymaha ciidamada Kenya ay ka geysteen gobolka Gedo wararkaas ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay subscribe ku saar gambalakana fur una share garay saaxiibadii meel kasta joogaan idinku markaas kumantiga laagna inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilaawno magaalada Muqdisho waxaa maanta kulan markaas albaabadu u xiran yahay wada qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal oo muddooyinkii dambe si tartiib ah u soo laabanayay xilli uu kala horaa mugdi badan harayay kadib markii dowladda federaalka Imaaraadka Carabta ay ku eedeysay in ay maalgelin iyo markaas ay ku hayso fargelin toos ah arrimaha Soomaaliya taas oo keentay in hakad uu galo labada dhinac khilaafka markaas xiriirka u dhaxeeyay kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay sidii dowladda Imaaraadka Carabta kaalin ay ugu geysan lahayd gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe Rooble oo dhawaan socdaal ku tagay magaalada Jowhar oo qayb ka mid ah go'doon ugu jirta fatahaadda webiga Shabeelle ayaa safiirka la wadaagay xaaladda adag ee ka taagan Jowhar iyo nawaaxigeeda si ay kaalmo degdeg ah u geystaan maamulka Shabeelle ayaa la daalacay fatahaadaha oo sanadihii dambe ku soo noqnoqday maamulkaas kuwaas oo gabi ahaan bixiray socodka magaalooyinka kala duwan ee magaalada Jowhar xogaha laga helay kulanka sidoo kale waxay sheegayaan in Imaaraadka Carabta markaan ay kaalin weyn ay ka qaadanayso arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale sida musharaxiinta ay ku hardamayaan ay midba mid kale ay ugu codaan hayeen ama kaalin weyn ay ka geysan hayeen siyaasiga doonaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya si uu soo bixi lahaa dhinaca kale saaxiibayaal haddii aanu halkaas kaga gudubno warar ku saabsan xogaha laga helay kulanka maanta dhexmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya markaana siyaasiyiinta inta badan ka soo jeeda beesha habargida ayaa waxa ay markaas ay ku dhagan yihiin siyaasi mucaaradka ee xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Same oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna xubin ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa si toos ah kaligiis ugu yimid qaabka xukuumadda ay u kala saartay guddigii doorashada ee cabashada laga keenay go'aanka uu kaligiis qaatay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inkastoo uu banaanka soo dhigay khilaafka kala aragti duwanaanshaha ee u dhaxeeya xubnaha midowga musharaxiinta haddana wuxuu si weyn ugu muujiyay in siyaasiyiinta beesha habargida ay intooda badan ay ka soo horjeedaan musharaxan labada qirsan yahay in uu tartanka adag soo galay af iyo idankana kula jihaaday madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Farmaajo siyaasigii ugu horeeyay ee ku yimid aragtida Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu noqday musharaxa kaliya ee markaas isku beesha ka soo jeeda ay ka soo jeedaan Cabdiraxmaan Xuseen Gureed oo ay ku tartamayaan inuu ka mid noqdo musharaxa beesha ee kursiga madaxweynaha isagoo u arkay fursad oo ugu dhawaan karo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble aragtida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka qaatay arrinta gudida ayaa dadka falanqeeya arrimaha sida waxay tilmaamaan in masaxa isla markaana ay la qaateen midowga musharaxiinta mucaaradka hase yeeshee midowga mucaaradka ay dhankooda weli warar murtiyada ama war ku saabsan arrintaas ay si toos ah aysan ugu soo bixin inkastoo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta ay si weyn arrintaas ugu hormudeen ma jirto talo laga geliyay ciddii cabashada ka qabtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shar wuxuu sheegay in liiska laga saaray 34 xubnood guddiga muranka laga keenay ee cid kala tashay midowga musharaxiinta taas beddelkeedana ay noqotay kuwa markaas la iska soo xariiqday daqiiqado kadib waxaa jawaabay oo wasaare Rooble ka xigsaday musharax Cabdiraxmaan Xuseen Gureed oo qoraalkiisa ku yiri waxaan soo dhaweynayaa go'aanka guddiga heer wasiir ee kala shaandhaynta guddiga doorashooyinka aniga oo u arkaa in ay ku dadaaleen muujiyana faafreeb ilaa xad uu kalsoonaan karo waxaana soo jeedinayaa in hore loo socdo
si dalka uu galo doorasho sida degenaansho iyo xasilooni siyaasadeed ayuu yiri Cabdikariim Xuseen Guuleed Liman Cabdikariim Macalin Axmed oo xilli dambe ka mid noqday taageerayaasha Farmaajo una dhow Rooble wuxuu isaguna soo bandhigay halka uu sarta ku qorasatay wuxuuna u muuqday nin ku faraxsan sida ay wax u socdaan oo cadaawad gaar u qabo Musharax Cabdiraxmaan Cashukuur wuxuuna qoraalkiisa ku yiri sida uu shaaciyay guddiga Rooble wuxuu saaray kala shaqeynta xubnaha guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay waxaa madaxweyne Qoorqoor madaxweynaha Galmudug laga codsaday inuu soo magacaabo xubnaha shanta ah ee loo gartay inaysan buuxin shuruudihii madaxa bannaan ee laga rabay guddiga doorashada xubnaha kale aan la tilmaamin ama markaas aan lagu sheegin wax cilad ah waxaa rajaynayaa in ay noqdaan kuwa shaqadooda u guta si hufan oo ku jirta si hagar la'aaneed ayuu yiri Cabdikariim Xuseen Guuleed dhankiisa wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi xildhibaan horena ahaa baarlamaanka ka tirsan ayaa isna soo dhaweeyay waxaa kaloo ka mid ah Mahad Salaad iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Odah oo dhammaantoodba ka hadlay arrintaas ku saabsan ayagoona soo dhaweeyay in markaas muhiim ay tahay in ra'iisul lagala shaqeeyo arrinta ku saabsan doorashooyinka iyo guddiyada soo magacaabistooda taas waxay bannaanka keentay in siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha habargidir ay markaas colaad iyo soo kaleentay dagaal culus uu kala dhexeeyo siyaasiga mucaaradka ee xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cashukuur oo sameeyay lama oga arrintan halka ay ku dambeyn doonto iyo dagaalka culus ee u dhexeeya siyaasiyiinta ka soo wada jeeda beesha habargidir qaybihii dhexe janalkeena ka wararka ayaa daawanaysan saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ku saaro gambale kan afro share gareey saaxiibadii meelka soo joogaan idinkoo markaas commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana madaxweynaha maamulkaas Axmed Madoobe ayaa waxa uu si rasmi uga hadlay duqeymaha ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika AMISOM ee ka geysan gobolka Gedo qayb ka mid ah kulanka golaha amniga ee maamulka Jubbaland oo bishii mar la qabtay waxaa shir gudoominaya madaxweyne ku-xigeenka Maxamuud Sii Aadan waxaana lagu cambaareeyay duqeymaha ay ciidamada Kenya ka geysteen deegaanada Ceel Cadde iyo deegaanada hoostaga degmada Ceel Waaqay gobolka Gedo Jubbaland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqday inay baaritaan dhab ah ku sameyso duqeymaha ciidamada Kenya u geysan dadka shacabka taas oo ay ku tilmaantay wax aan loo dul qaadan karin sidoo kale waxaa kulanka diiradda lagu saaray qodobada kala duwan oo ay ka mid yihiin xoojinta la dagaalanka al-shabaab xoreynta gobolka Jubbada Dhexe iyo deegaanada kale ee ka maqan gacanta Jubbaland iyo u diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka dalka qaybta kaga ah ama qaybta kaga ah maamulka Jubbaland kulanka waxaa soo kale ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee qaybta ka ah golaha midowga amniga saraakiisha kala duwan ee ciidanka Jubbaland kuwa xoogga dalka iyo ciidamada qaybta ka ah howlgalka nabadgelyada midowga Afrika AMISOM wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo dhawaan soo saartay war-saxaafadeed ayaa si adag uga cambaareysay duqeymaha maalmihiina soo dhaafay ee diyaaradaha dagaalka dalka Kenya ee ka fuleen gobolka Gedo isla markaana halkaas ay ku laayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan taas oo loo arkay inay tahay daandaansi kale oo ciidamada Kenyaanka ah ay ka fulayaan qayb ka mid ah dhulalka Soomaaliya ay degto isla markaana dowladda federaalka waxay sheegtay in tallaabo cad laga qaado doono xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaana ku hanjabay in dowladda Kenya haddii ay ka waanto weesana ay markaas sharciga caalamiga ay la tiigsan doonaan warar kale ee gobolka geeskan waxaa ugu waaweyn hogaamiyihii kooxda fallaagada islaami jihaadka ee markaas Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria ayaa la soo wariyay in uu isdilay xogta cod ay soo dubeen maleeshiyaadka islaamiga oo uu dagaalka kala dhexeeyo kooxdaas ayaa sheegay in hogaamiyaha uu geeriyoday cod ay heleen wakaaladda wararka kooxda isku magacday dowladda islaamiga ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in Abubakar Shakaaw uu ku dhintay qarax ismidaamina oo isku xiray kadib dagaal dhex maray labada kooxood Abubakar Shakaaw ayaa la rumaysan yahay in uu jiray da'da 40 sano wuxuuna marar badan ka soo dhex muuqday muuqaalo uu uga hadlayay ololaha kooxda bishii hore ayaa la sheegay in Abubakar Shakaaw uu dhintay halka marar badanna hore loo sheegay in uu geeriyooday ilaa hadda dowladda waddanka Nigeria iyo sidoo kale kooxda Boko Haram toona ma aysan xaqiijin geerida hogaamiyihii kooxdaasi sidoo kale bishii la soo dhaafay markii uu soo ifbaxay warar kale saddex marayay ee ku aadanaa geerida Abubakar Shakaaw militariga Nigeria waxay sheegeen in arrintaas ay baarayaan Abubakar Shakaaw wuxuu awoodda kooxda la wareegay markii uu gacanta booliiska uu ku dhintay ninkii aasaasay ururka sanadkii 2009 wuxuuna kooxda u horseeday in weeraro dhiig badan uu ku daatay ay ka fuliyaan waqooyi bari dalkaasi Nigeria si kastaba hogaamiyihii kooxda Boko Haram Abubakar Shakaaw ayaa intuu hogaaminayay Boko Haram waxaa kooxda fuliyeen weeraro loo adeegsaday bambaanooyin falal afduub ah iyo in ay maxaabiis xoog ah ay ugu soo sii dayaan xabsiyada sanadka 2014 waxayna kooxda bilowday oo ay ku qabsanayaan magaalooyinka si shariicada islaamka ee halkaas ay ugu soo rogaan isla markaana ay ku dhaqaan xukunka iyo awoodaha ay u leeyihiin in ay maamulaan qayb ka mid ah dalka Nigeria oo si weyn ay ugu soo horjeedaan dowladda dalkaas iyo in ay tahay waxbarashada reer galbeedka xaraam oo ah magacoodaba
oo ah kooxda Boko Haram guud ahaan daawadayaal waa naga inta wararkii waaweyn ee Soomaaliya caalamka kala socoteen channelkeena ka ah wararka fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ku saar gambar kana furo wala share garay saaxiibadii meel kasta joogan idinkoo markaa aad ku mantiga laagina inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin